barnaamijka dabagalka degmooyinka waa barnaamij aan si qoto dheer uga hadli doono shaqooyinka, fursadaha iyo caqabadaha ku horgudban horumarka degmooyinka. barnaamijkan waxaan ku soo bandhigi doonaa xogo badan oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato 17 degmo ee gobolka Banaadir. waxa uuna ka jawaabi doonaa su'aalo badan oo maskaxdaada ka guuxaya oo ay ka mid yihiin sidee ay u qaybsadaan cashuurta ka soo xaroota degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka. imise degmo ayaa ku jirta gacanta xoogagga wadaniyiinta. degmooyinku awood ma u leeyihiin inay dalbadaan in laga dhex dhiso jidadka mara ee burbursan. maxay tahay sababta ugu weyn ee khilaafka markasta soo kala dhex dhigta gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga booliiska ee degmadaas? imise degmo ayay si sax ah u shaqeeyaan xarumo waaxeedyadooda? ma dhabba in askartii booliiska ee loogu talagalay sugidda amniga degmooyinka loo qaybiyey xildhibaano iyo siyaasiyiin si ay u ilaaliyaan lacagna looga sameeyo? waa kuwee gudoomiyayaasha ku yimid arrimo siyaasadeed iyo magacyada siyaasiyiinta keensaday? goorma ayaa u dambeysay in mushaar helaan askarta ku qoran degmooyinka gobolka Banaadir? waa kuwee degmooyinka ugu amniga xun Muqdisho? maxaa kala socotaa inta gudoomiye degmo ee aan ku imaan magacaabis rasmi ah? yaa ka joojiyay mushaarkii ay qaadan jireen gudoomiye waaxidada degmooyinka? imise gudoomiye degmo ayaa sidii loogu talagalay u maareeyo lacagaha loogu dhiibo in lagu socodsiiyo shaqooyinka degmada ee running costiga loo yaqaan? dhammaan su'aalahan iyo kuwa kale waxaa jawaabahooda ku daawan doontaa barnaamijka dabagalka degmooyinka oo aan degmo walba si gaar ah uga hadli doono maalin kasta oo Jimco ah. dabagalka waxaa si wadajir ah u diyaariyay Cali Aadan Muumin iyo Maxamuud Ali Xaaji. ujeedka dabagalku waa dardargelinta horumarka degmooyinka iyo iftiiminta caqabadaha ku horgudban si xal loo helo.